xafladan oo ahayd mid si sare loo soo agaasimay isla markaasina ay soo qaban qaabisay madasha Galmudug European Diaspora Association Network oo loo soo gaabiyo gadan ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Xafladan oo ahayd bogaadinta guulaha isdaba joogga ee Galmudug gaartay ayaa lagu soo bandhigay waxyaabihii gadan ku soo aragtay meelihii ay booqatay wasaaradaha iyo xarumaha kale ee dowladda, waxaana ay ku bogaadiyay dowladda Galmudug iyo hoggaankeeda ugu sarreeya madaxweynaha Galmudug qaybna ka yihiin madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid, gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug, waxaana ay sheegeen in Galmudug intii ay jirtay ay ugu roon tahay markan isla markaasina ay sameysay dhismayaal iyo horumaro aad u waaweyn. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka magaalada Dhuusamareeb Cabdisamed Salaad Aadan iyo xildhibaan Canab oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug, waxayna u mahad celiyeen madasha gadan oo soo bandhigtay waxyaabihii ay ku soo aragtay dowlad goboleedka Galmudug. maadaama 2024 anagoo joogna guulaha iyo mashaariicda dhamaystirantay iyo kuwa kale oo rajaynayno inay 2024-2025 pipeline-ka ku jiraan oo rajaynayno ayaguna si nabad ah inay noogu qabsoomaan. waa wax Ilaahay looga maadiyo, laguna ammaano, laguna dhiirigeliyo madaxdii Galmudug ee suurta gelisay, gaar ahaan madaxda hadda suldada haysa madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha baarlamaanka oo maskax iyo galiyay. aad iyo aad ayaan u bogaadinaynaa qurba joogta, mas'uuliyiinta nagala joogta, rag iyo dumarba waa soo dhawaynaynaa. waxyaabaha maanta meelaha Soomaaliya dhismay ee la dhiirigeliyo la fiiriyo dee dadka dhisay boqolkiiba 60 ama 70 in ka badan waxa suurta gelisay qurba joogta. maantana waxaan rajaynaynaa inaan isu sheegaynin wadanku wadan nabada la maal gasho karo, qof walba dee aragtidiisa iyo hal abuurkiisa ugu soo bandhigi karo. waa mahadsantihiin. wax badan aad soo qabateen inta aad maqnaydeen dalka waa badbaadiseen, annagana waa dadaalnay. caawa meeshaas aad aragteen oo maalmahan aad soo aragteen annagana soo gaarsiinay annagoo baarlamaan iyo xukuumad iswadata ah bacdal shida watacab, annagoo mid ah oo aan maamul 2 degmo iyo 3 degmo ka tirsan ahayn oo ishaysano oo hal Galmudug ah aan horta caawa joogna. Ilaahay ma haddaas iska leh. dadaalkaasna waxaa keenay baarlamaanka oo buddigo oo ah iyo xukuumadda iyo madaxda meeshan ka muuqatay 2 xubnood oo ka maqan oo gabari ku jirto. waxaa la idinka rabaa marka hawshiinu fari kama qodno faanool, annaga taayadii waa qaban. waxaa la idinka rabaa, waad aragteen madaxtooye qurux badan, wasaarado fiican aad soo aragteen sidii lagu keenay. Ilaahay baa og. waxaa idiin dhiman oo la idinka rabaa 3 shay. marka koowaad waxaa la idinka rabaa saa ilmihiina u soo celisaan oo u soo ceemisaan oo dhaqankoodii iyo afkoodii iyo diintoodii iyo dalkoodii iyo dadkoodii aad u bartaan, idinkana ay idinkaga badbaadaan masaa'ibta ka dhalata meelihii aad ka timaadeen. amniga oo qabyo naga ahoo raba xoogaa tuulooyin iyo 2 degmo camal ah annaga khawaarijda la joogtay sidii lagu bixin lahaa. qof walba kaalin uu leeyahay. idinka kaalin dhaqaale leh tabaraysiinay meesha ismatiga kirtiin waa la soo ogyahay dhaqaalihii inaad soo urursaan la rabaa. waxa kale loo baahan yahay annaga airport ma qabno qurux badan. waa aragteen airportada asaageen wadooyin badanna ma haysano. marka qof kasta oo reer Galmudug ah haddaad adiga gudoomiye iyo wiilkan kale isagana Xuseen iyo wiilkan kale saaxiibkiisa la socda haddaad 10 caruur dhasheen ama 20 dhasheen midkiiba $1 hadduu na siiyo qof walba qoyskiisa $10 ay ka soo baxdo 100 wada waa dhisaynaa. annagana diyaaraan u nahay, idinkana soo diyaar garooba. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay la taliyaha gadan Cabdikariin Maxamed, waxaana uu sheegay in horumaradan ay soo bandhigeen ay tahay waxyaabo sax ah isla markaasina Galmudug ay sameysay horumar ballaaran. run ahaantii markii aan soo aadnay aniga iyo gudoomiyaha Galmudug qaasatan Dhuusamareeb, run ahaantii isma dhahaynin markii meesha aad tagtay waxaan is dhahaynay ama aniga aan is dhahayay meel bus badan oo dhibaato badan oo aad qarax u ah oo macnaha aan nolol ka jirin ayaa tagi doontaa. laakiin wixii aan ku soo arkay run ahaantii waa wax isbedel weyn. run ahaantii waa magaalo wanaagsan, amnigeeda 100% uu yahay. wax badan ay dowladdan mudane Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo madaxweyne ku-xigeenka Cali Daahir Ciid iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Nuur Gacal iyo labadiisa gole iyo dhammaan dadweynaha Dhuusamareeb hawl wanaagsan ayay qabteen. waxaan fursad u helnay in
si sharaf leh lagu soo dhaweeyo madaxtooyada galmudug oo si wanaagsan oo dadkii walaalahooda ay qurbada uga yimid ay ku soo dhaweeyeen iyagana waa uga mahadinaynaa madaxtooyada galmudug run ahaantii waxaan fursad u helnay aniga iyo gudoomiyaha in aan soo booqano wasaarada kala duwan oo galmudug ay leedahay waxaan tagnay wasaaradda waxbarashada waxaan tagnay wasaaradda caafimaadka waxaan tagnay wasaaradda qorsheynta run ahaantii waxaan u tagnay xafiis kasta oo shaqaalihii ka shaqeynayay ee si joogto ah u joogaan qol kasta ayaana la geliyay kormeer ayaan ku soo sameynay dawladda nama farin inaan wixii soo aragno aan macnaha iyada ku ammaano laakiin waxaan ammaan u soo jeedinaynaa runtii dawladda waxa ay qabatay ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gadan xuseen maxamed axmed xuseen qadiib iyo wasiirka haweenka waxaana ay sheegeen in xafladani ay tahay mid muhiim ah sidoo kalena waxay u mahad celiyeen dhammaan intii ka soo qayb gashay marka waxaan idinka codsanayaa walaalahay reer galmudug meel walba ay joogaan walaalayaal oo dawladda aan ilaalsano wax ma qaldamayaan lama dhahay wax waa naga qaldamaan wayna qaldami doonaan laakiin waa inaan isla ognahay inaa qof walba oo mas'uul ah inuu wanaageena ka shaqeynayo anaga diaspora haddii aan nahay waxaan rabnaa inaan maamulka la shaqeyno bulshada rayidka la shaqeyno taladiina u baahannahay kaalmadiina u baahannahay iyo akhbaarta inaana siisaan waxaan rabnaa anaga inaan halkaan xafiis ku yeelano madaxweynahana oo noo ballan qaaday inuu noo sameey doono waxaan rabnaa waxay tahay horumarka wuxuu ku qurux badan yahay in ay leedahay institution iyo meel laga soo galo meel laga hogaamiyo laguna kala dambeeyo idinla kaftame hadaayo waxaa lana yiri qurbo joogay markaa noo timaadiin waxaa rabtiin maamul kaliya markii inaad yaryaalo inaan tiraadiin magaaladii maamulkan ha aadinin isma qabato marka guddigeena waxaan rabaa waqtiga waa igu yaryahay oo galmudug oo dhan ma wada gaaro laakiin waxaan idin sheegayaa dad badan oo aniga iga daran inaan keeni doono meeshaan waxa aan u keenayna waxay tahay inay arkaan mas'uuliyadda ay qaadeen oo galmudug quruxda ay qabto iyo hawsha qabyada ah oo noo taalo waxaan rabnaa inaan galmudug aan xayeysiin badan u sameyno oo aan ka gadna adduumweynaha waxaan rabnaa inaan gaalada u fasirno madaxana furan macnaha ka dambeeya waxa uu yahay aad iyo aad mar labaad aan uga mahad celinaa gudoomiyahana noo soo safray inuu arka kaliya galmudug iyo gudoomiye maxaa la dhahaa advisorkiisa weligeed ma arkin dad ganacsato waa laga yaabaa ama reerahooda soo salaamay laakiin gudoomiye dhaha horta bal xogta aan soo fiiriyo xaaladda meesha ka jirto maasha allah daas wuxuu ku tusaysaa leadershipkaaga iyo sida ay kaaga go'an tahay soo dhawow